السلام عليكم ورحمة الله وسلام يا ولال وحمانت كو هيا أرين كقوة وين إلهي بقوة إسكالي باور كباور بدن كوبايد كوفي جاين ده كل فريسيد كباور بدن إن إنرجي قاعد عبيسيد كحوق بدن كباور بدن وإن بدن شركة كاجا جريا إن مركا تشيم كتجسيد إن بروتين كانت عبيسو وحا صودن اسكو صودو دوب وحا كمهمسن وتصبيح ذا وذكرها وتكو عيشته أيا دلالتها صودن إنرجي كسيريا مثلا شقدي قريقات كعاجستي toban jeer may badan tahay ma badna hadhow marka carabku la qabsado adigoo waxaad arkaysaa dariiqa socdo ku celcelinaya sii seexanayo qalbiga kaga sii celcelinaya in meel iska fadhiyo tasbiixdii bilaabay carabka wixii la baro ma joojiyo tasbiixda ku celceli arinta daliil baan ku haysanaa oo mar aan xalaqad ka qayb garay oo xadiisna loo micneynayay haddaan khaldanahay way sixi kartiin waayo waqti dheer oo fog beheed إن ودادكي حديثك نو معنينيي لaba jeerba hadalka wuu kala yiri mar qofkii ahayd uu ku dhawaaqay marna wuxuu yiri gabadh baa nabiga kaleey salaam u timid marna wuxuu ku sheegay inay Fatima gabadhiisu ka dacwootay yani ay tiri shaqada aqalka igu culus waan daalay gacmii bay xanuunay adigu way cabad marna wuxuu ku tilmaamay gabadha nabiga u timid inay Fatima tahay haddaan khaldan hay saxa marna wuxuu yiri nabiga kaleey salaam gabadh baa u timid oo hawsha aqalka culays ku noqotay oo ku daashay iyo hawlo kala bada u noqon kara in nabiga ku tiri waan daalay markaas nabiga kaleey salaam ku yiri dhikriga ku celceli subhanallah alhamdulillah allahu akbar marka inta karasid ka gaarsi ma fahantay marka dhikrigu waa muhiim walaalayaal energy buu jirkeena gelinaya waxaad ku bilowdaa aroortii marka aad sariirta ka soo kacayso adoon ka soo kicinba telefoonkaaga markiiba eegina telefoonka iska daa ku bilow dhikriga midkiiba 10 jeer ma badan tahay ma badna allahu akbar 10 jeer subhanallah 10 jeer alhamdulillah 10 jeer la ilaha illa allah 10 jeer حسبي الله ونعم الوكيل 10 jeer لا حول ولا قوة إلا بالله 10 jeer آية الكرسي isaga hal mar laba jeer saddex jeer inta ka gaarsiin karaysa samee saddexda qol wala samee jirkaaga waxaad arkaysaa isagoo duulaya ma fahantay weliga ma maqasho waa duuli deetana kaaga dhabeynaysa hadaba energy miran ma noqonaysaa waxa noqonaysaa sidii camal faras oo kala day ordaya marka insha Allah arinta anigu wax weyn baan ka arkay wali ila arkay duula dhahdo wuxuu nabiga kaleey salaam sheegana waa guarantee weeyaan ma fahantay marka haday kugu dhacdo inaad arinka caajisayso midna imtixaan baad leedahay si akhri dirkirga مثل واحد ربط الصباح هذا فريش أنا صوت وسط هبينك سي آخري وكان النبي عليه الصلاة والسلام إنه شيء هبينك ذكر ولا سي آخري استوي في عنتهاي هبينك سي آخري واحد ربط الساق مركز عندها سوق القادين الضحك اللي بكون مشغولين فوكس لرارت هذا هاتو آخري امتحان بعد مرسى آخري مثلا فرح بابا كوري حليمو كالي كابا ترى دقنا ياخدي ما تيجا قليد دي فهمتي arintaasi mashaakilkayga leedahay farax dambi weyn buu ku dhici karaa waxyaalo khalad uu sameyn karaa oo ku dhici karaa waayo ragu adkaysi male sababta uu lahayna qoraan nigu micneeyay adiguna dee walaal dhibteedaad hadhow qabaysaa qofkii dambigii waad la qabay malaa'igtii baayaan ku ducaynayn wax weeyaan dikrigan akhriso fahantay qofkan laba shay baa ku dhici kara inuu dambi ku dhaco iyo in lagaaga dhaqaaqo saara dhibteeda adoo mahadhow ku qabi karo ma fahantay adoo u bareero mooyaan laakiin waxa weeyaan inay insha Allah ku dadaashid ma caajisaysid guriga shaqadiisa dad ku daashay awlaadii ku daashay nidaam nolosha iskaga samayso walaalo akhriso dikrigan hawada soo yar qaado dikrigan akhriso fresh baad noqonaysaa marka taa dhaxaa kaga baxo wax walba oo doonaysa inaad samaysid dharaartaadaasi dikriga hadaynin subaxdii bay bilaabmaysaa sariirta marka ka soo dulkacdid adoon ka kicinba oo marka indhaha saa u kala qaadid ku bilow 10 jeer midkiiba 10 jeer okay hadhow waa ka badsan kartaa laakiin horta training ba wax walba u baahan tahay inaad nafta bartay u baahan tahay marka ka soo bilow alxamdulillah ka soo bilow subhanallah alxamdulillah allahu akbar midkiiba 10 jeer
waxaad raacaysaa laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah waad raacin kartaa amba laa ilaaha illa allah waad ku celin kartaa waxaad raacinaysaa xasbiya allah wa nicma alwakiil ku celi 10 jeer laa xawla walaa quwata ilaa billaah 10 jeer hadhow ka badso haddaa rabtid laakiin intaa ku bilow subaxdaada markaad sidaa indhaha u kala qaado ku celceli intaa wax yar ka bacdi bal u fiirsa jirkaaga wuxuu sameeyo bal u fiirsa dharaartaada sisay noqoto insha allah arrintaas waa muhiim walaalayaal wuxuu nebigu sheegana waa garanti weeyaan markaa isoo saxa xadiiska walaal haddaad xasuusanaysid isoo saxa من فاطمة رضي الله عنها بالنبي أثمد وقلت لها وش هيكو بدن وان دالي إن وحي عاوية وبهاي هي والنبي وحكو أن كلت لي إن الذكر كو عيشة واي تاسا وغخير بدن وغفي عن ما فاطمة هي مسا فيرسيون كلام كو مقلايدونا استشيخي حديث كانوا معناني وما أنو كمقلاي إنه وحي يري قبرد بالنبي أثمد بركا قبرد ما فاطمة بليسو عطايا sheekhan ma si fiican wax lagu micneeyay way waqtigani mari hore heed ma dhaweyn marka diita rabeena bartay mar hore heed wax xasuusta musaxsan yahay mise ma saxsanayo soo sheega arintaas waxa weeye walaal anu wax ma ka arkay marka arintan walaalayaal waa arin muhiimadeeday wallahi leedahay wax badan bay ka caawinaysaa hadday tahay qof naxnaxdin badan oo naxnaxa dikriga badso naxdintu way kaa kala yaraan wayna kaa baabiya dhow toole ilaahay baa kalsooni ku gelinaya quwad baa lagu gelinaya haddii aad rabtid daraartaadaasi inaad focus noqoto waayo adduunkan maanta aynu joogno wuun ku dhex sida badda loogu dhex muqurto ma aragto loo dhex galo ma wallaahi u dhex muquranay marka haddaan doonayno focus noqono oo indhahaynu kalbayntu meel ay eegayo arrimaha muhiimkuwan aynu aragno waa inaan dikri nolosheena aroortii aan ku bilowno habeenkiina aan ku seexano focus buu nasinayaa ma fahanti marka aroorta markaa indhaha saa usoo kala qaadid kuu celceli dikriga adigu liisti samayso si isugu dabixi xigaana samayso 10 jeerna ku bilow hadhuu ka badsa haddaad doonaysid marka adigu intaasa walaal kusoo xasuusinayaa waa muhiim aroorta markaa indhaha saa usoo kala qaado sana telefoonkaagan iyo komentiyadan iyo waxaan akhrisanaysa waxaa qorisa halkaas ka dhig waqti waad u heli hadhow laakiin arrimuhu saw kala horeeyaan samee كوفيجا إنرجي العبيو كوفيجا العبيو إن بروتين كان العبيو وحا صودا ودور ساعة ضوحك وهيني دور منت لكن ذكره درارت هذا صودن بكو افتيمنا يا قوتكو قلينا يا كسينا يا إن باور بكو سينا يا أشر كيجينا والله ده ويقفك سبحان الله هالمر هذا إلهي با جنة قيد وقبيرا قفك هالمر الحمد لله هذا إلهي با جنة قيد وقبيرا قفك الله أكبر هذا إلهي بقيد جنة وقبيرة مركا كو علي قاردنكاكي جنة ديارسو هلغو دياريو وحانو قيدا ما نالا بهدو تلقرن ودهوز دوكسن مركا إن شاء الله كو دذال ما فهمتي وحانو نفتد لجي عليهي داد كانوا ما لجي عليهي ونسو قارثي إن شاء الله كو علي وحكستو تكعاجستو هاسدقنين ذكر قاوم سماء كو علي صدو مر قدهيد اسبدل باكو إيمان waxaad sarka adigu energy miirana oo hawshii ku dhaqaaqay badarkaysaa marka hay loobin samee dadka jeceshay kugu hareeraysanna xasuusi naftaadana dhiirigeliyo samee mar walba waxba ma ka caajisid waxaad u isticmaali kartaa dikrigaasi haddaad ka shaqayso meelaad shaqadeedii nacday una jeclayn dikriga haddaad ku celcelisid ilaahay baa quwad ku siinaya aad shaqadan kaga bixi karto mid kaloo ka khayr badanna insha allah waad heli ee samir ذكرهم كل علي شقada guriga haduu kugu cuslaado shaqada guriga walaalo iskaga samee nidaam awlaadaada discipline ka bar nidaam u bar okay hawlaha fudud ee yar bar looga soo baxo si wala delegeeyaa arrimaha dhabarka ha ka jabinin dadka kula nool laakiin qof walbaba waxaan aad barayso isaga hadda anfacaysa si xinigu ilmuhu ku cunteeyo waa inuu rafaco xataa haday gabadh kuu shaqayso guriga ay ku masaxdo sixnigaaga waad cuntay kubaayadaad waad cuntay madbaxagee isaga u fiican tahay waa discipline wayaan beritoole hadduu arday noqdo beritoole hadduu qofkana reer yeesho beri haddii xitaa uu xaas yeesho inuu yahaybo gabadhu ay ka xanuunsatay u musho dee cuntadii ilmuhu cuna uu ka hor rafacayaa oo ceeb lama noqonayso waayo waxaan waa awlaadiisii waa naftiisii waa gurigiisii meeshanu ku qurmo ma rabo gabadhuna waa saasoo kale guriga nidaam iskaga yaal
gurigu hadduu shaqadiisu kugu cuslaado nidaam baa loo yeelaa arrinta kale ku caawinaysa waxa weeyaan باور بعضو باهنتهي دال إن أنا دريمين بقى هذا ربتي ذكر كوع العلي تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يسقى بينوت المامي وعن هذا الكوع علينا يا سي مسكح لك على قشو أدبان هو سلام يا درارتي نادين معناته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.